dhalinyar haddaad tahayna dhallinyarnimada ilaahaaga ku garo oo toddobada ilaahay u hadhaynaya waxaa ka mida buu nebigu yidhi shaabun nasha'a fii taacati illaah nin dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa daacadda ilaahay ku barbaaray dhallinyarnimaduna waa qayb ka mida waalida buu rasuulku yidhi waalan yahay ninka dhallinyaradu markuu dhallinyaro yahay haddii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro waad liibaantay ogow wanastaqiim ilaahay amarkiisaan ku toosnaano insha allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiina ayaan dhex joogaa dad muslimiina ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nebiyullaahi aadam calayhi assalaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeday ahayd jannada meel ka fiican may jirtaa halkaasaa lagu ikhtibaaray isaga jannada dhexdeeda fakulaa minhaa xayثu shi'tumaa walaa taqrabaa haadihi الshajara fatakuuna min الظaalimiin shaydaan ayaa u yimiday ibliis calayhi allacna daedna uu waswaasiyo wuxuu ku yidhi geedkaas cuniddiisa lagaa reebay manfacada ku jirta ma kuu sheegaa haa noo sheeg haddaad adiga xaawo geedka aad cuni lahaydeen adiga iyo xawaa laba midun baad noqon lahaydeen an takuuna malakayni aw takuuna min alkhaalidiina laba malag baad noqon lahaydeen ama laba weligood jannada ku waari ayaad ahaan lahaydeen buu ku yidhi waa daakhil aljanna lagu imtixaamay nebi aadam calayhi salaam deedna gefkii buu ku dhacay jannadii baa laga soo saaray oo maalinka qiyaamaha dadku markay nebi aadam u tagaan ee shafaacadda ay weyddiistaan ay leeyihiin abulbashar baa tahay adaana nebiyada ugu horreeye ilaahay nooga ergee waa ka odhanaya gefkii aan jannada dhexdeeda ku galay ayaaba jannada inaga soo saaray buu leeyahay caabid baan ahay oo cibaadad badan baan ahoo ilaahay baan caabudaana ha ku degmin baa la yidhi ibliis samada meel ka bannaani ma jirto ilaa isaguba ilaahay buu ku caabuday haddana malaa'igta dhexdeeda isagoo ku nool oo buqcad kastoo samada ku taalla dusheeda ilaahay ku caabudayna isagana halkaabaa lagu imtixaamo lagu fidneeyey ibliis calayhi allacna xataa aadam calayhi salaam markii la sawiray suuraddiisa intaanan ruuxda lagu afuufin 40 sana la yidhi ayuu nebi aadan engegayey dhoobadiisii ay engegaysay markaasay malaa'igtu sidaa u eegaan way ka cabsadaan markaasay u yimaadaan ibliis calayhi allacna oo malaa'igtu ay u arkayeen inuu yahay ka ilaahay ayaka ugu dhow markaa bay ku yidhahdaan xaamudow ilaahay noo bari oo noo bari adaa ducadaada la aqbalayaa waayo imtixaan baa soo socdee imtixaanka inaan ku fidnowna ayaan ka baqaynaaye ilaahay noo bari bay ku yidhahdeen imtixaanka inaanan ku dhicino ilaahay naga badbaadiyo markaasuu u duceeyaayuu yidhaahdaa ilaahay imtixaanka hay naga badbaadiyo iyo kuu ducayn isaguse isaguu iska reebaa ducadii iyakaa loo aqbalay isagiina ikhtibaarkiibu ku dhacay baa la yidhi oo muxuu diiday sujuuddii nebi aadam buu iska diiday marka caabid baan ahay oo meel fiican baan ilaahay ku caabudayaa bay culimmadu leeyihiin ha ku degmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabuddaa cabsidaasi markaa waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid